madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada dowladda Puntland mudane Cabdicays Cabdullaahi Cismaan xubnaha Golaha Wakiilada dowladda Puntland Golaha Wakiilada dowladda Puntland madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole kusimaha Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Golaha Wasiirada Golaha Garsoorka Gudoomiyaha Xafiiska Difaacaha Xuquuqul Insaanka Guddiga Ku-meel gaadhka ee doorashooyinka Puntland maamulka gobolka iyo degmada ismada culimaadudiinka qunsuliyadda Ethiopia hay'adda UNDP unsom ururada bulshada rayidka qurba joogta ururka saxufiyiinta Puntland ururka haweenka ciidamada qalabka sida howlwadeennada golaha wakiilada saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadda furitaanka kala fadhiga 45aad ee Golaha Wakiilada dowladda Puntland oo maanta ay taariikhdu tahay 26 Oktoobar 2019 inooga furmaya xarunta Golaha Wakiilada Puntland waana idinka mahad celinaynaa ka soo qaybgalkiina baarlamaanka shanaad ee Golaha Wakiilada Puntland oo xafiiska hayay muddo 10 bilooda iyaga oo gudanaya xilkii iyo waajibaadkii loo idmaday waxa uu qabsoomay muddadaas kooban oo ay xilka hayeen arrimo badan oo kala ah dhinacyada xeer dejinta matalaadda shacabka kormeerka hay'adaha dowladda kor u qaadista aqoonta baarlamaanka iyo howlwadeennada sidaas awgeed maadaama aanu nahay wakiiladii shacabka waxaan halkan si kooban ugu soo gudbinaynaa waxqabadkii golaha iyo qorshaha kala fadhiga 45aad ee maanta inoo furmaya matalaadda shacabka guddiyada kala duwan ee golaha wakiiladu waxay kormeero shaqo ku tageen dhammaan gobollada Puntland iyagoo u korgelaya xaaladaha dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dadweynaha gaar ahaan dhinacyada arrimaha bulshada amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha waxay dhageysteen kulamano la qaateen bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoo si dhab ah u darsay baahiyaha kala duwan iyo tabashooyinka ay qabaan waxayna kormeeradoodii ugu dambeeyey ku tageen deegaanadaas Puntland dhammaantood bishii la soo dhaafay ee Sebtembar iyaga oo kala fadhigan golaha soo hordhigi doona warbixino ku saabsan sida adeegyada arrimaha bulshada loo gaadhsiiyey dadweynaha iyo baahiyaha ka jira guud ahaan gobollada Puntland sida biyaha amniga waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha kale la midka arrimahaas oo loo gudbin doono hay'adaha ku shaqada leh si wax looga qabto loogana jawaabo baahida jirta wixii awooda laba dhinaca xeer dejinta goluhu wuxuu kala fadhigii 44aad meel mariyey xeerka guddiga shaqaalaha rayidka xeerka istaatikada ama tirakoobka iyo xeerka khidmadaha ilaalinta terminaalada garoomada diyaaradaha Puntland goluhu wuxuu diiday xisaab xidhkii miisaaniyaddii 2018 iyagoo sabab uga dhigay ku dhaqan la'aan miisaaniyadeed taas oo ka soo horjeeda dastuurka Puntland sidaa awgeed sida uu qabo qodobka 137 ee dastuurka waxaan u gudbinay xafiiska xeerdhaaliyaha guud si uu waajibaadkiisa uga qabsado waxayna taasi ku tusinaysaa sida ay baarlamaanka shanaad ee aan hogaaminayo uga go'an tahay in ku dhaqanka dastuurka ilaalinta ku dhaqanka dastuurka xuquuqda shaqaalaha rayidka iyo ciidamada qalabka sida waxaa guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada si ku meel gaar ah wax ka bedel ugu sameeyeen una meel mariyeen xeerka dhiirigelinta maalgashiga Puntland iyagoo ujeedadoodu ahayd inay maalgashatada wadaniga ah iyo kuwa shisheeyuhuba helaan fursad ay ku maalgashadaan dhulka Puntland sidaas awgeed waxaa guddiga
waxay guddigu ku dareen dhiirigelin qaanuuni ah oo soo jiidan doonta maalgashatada waddaniga ah arrintaas oo soo kordhin doonta shaqo abuur iyo horumar dhaqaale guddigu waxa kale oo ay meel mariyeen wax ka beddelka xeerka cashuuraha xeer lambar 3 golaha wakiilada Puntland waxay talooyinkooda ku biiriyeen hindise xeeradyada maamulka dakhliga iyo kan doorashooyinka oo ay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed la tashi ahaan noogu keeneen bishii Sebtembar 2019 waxaa goluhu si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka u gudbiyey guddiyada heer federaal ee ku shaqada leh samaynta iyo meelmarinta xeerka maamulka dakhliga waxa uu muhiimad gaar ah u leeyahay barnaamijka deyn cafinta dalkeena sidaas awgeed annagoo xil weyn iska saarayna arrintaas waxaa guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka golaha wakiiladu ka qayb galeen kulankii wada tashiga ee ka dhacay dalka Ethiopia iyo kulankii labaad oo lagu qabtay Garowe caasimadda Puntland waxaana wada jir uga soo qayb galay dowladaha heer federaal iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka kulamadaas waxaa ka soo baxay talooyin muhiim ah oo loo gudbiyey guddiga maaliyadda ee baarlamaanka heer federaal iyadoo oo muhiimadayadu ahayd inaanu waafajinno nidaamka federaaliga waxayna noogu dhammaadeen guul iyo safgarad hindise xeereedka doorashooyinka qaranka waxaa la tashi kala samaynay golaha xukuumadda Puntland iyo ururada bulshada rayidka ee Puntland waxaana isla qaadanay in Puntland ay mowqif midaysan ka qaadan doonto nidaamka doorashooyinka dalka ee 2020 maadaama aanay muuqan waqtiga yar ee haray in lagu qaban karo doorasho qof iyo cod ah lana gaari karin waxyaalihii asaasiga u ahaa nidaamka doorashooyinka sida amniga dhammaystirka dastuurka tirakoobka dadweynaha diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo axsaab ku dhisan nidaam iyo sharci buuxiyeyna shuruudihii xisbinimo sidaas awgeed maadaama doorashooyinku yihiin arrimo siyaasadeed oo masiiri ah Puntland waxay ka yeelan doontaa go'aan midaysan waxaana u gudbin doonaa cid kasta oo ay khusayso arrintaas iyada ah arrimaha dastuurka ku meel gaarka ah sida aan wada ogsoonnahay dastuurku waa heshiis bulshada u dhaxeeya ayna isku aaminaan bulshadu haddaba si uu taabagal u noqdo nidaamka federaaliga ahi waxaa muhiim ah in la dedejiyo lana dhammaystiro dib u eegista dastuurka si looga gudbo caqabadaha maamul iyo kuwa siyaasadeedba loona helo dib u heshiisiin dhab ah kormeerka iyo dabagalka hay-adaha dowladda goluhu isaga oo gudanaya waajibaadkiisa ku cad qodobka 46aad ee dastuurka farqadiisa 6aad kana duulaya barnaamijka siyaasadeed ee xukuumadda waxaan dabagal iyo kormeer ku sameeyeen dhammaan adeegyada ay xukuumaddu u hayso dadweynaha waxaana goluhu kala fadhigii 44aad xukuumadda u gudbiyey talooyin wax ku ool ah oo ku aadan dib u habaynta maaliyadda dalka xafiiska hantidhowrka guud iyo bangiga dhexe ee dowladda nasiib wanaag arrimahaas si degdeg ah ayaa xukuumaddu wax uga qabatay waxaadna la socotaan in isbeddel lagu sameeyey hay-adahaas inkastoo ay weli wax badani qabyo ka yihiin xiriirka baarlamaanada iyo baarlamaanka Puntland golaha wakiilada Puntland oo xiriir dhow iyo wada shaqayn leh golayaasha xeerdejinta dalka iyo kuwa wadamada deriska waxaanu martigelinay kulankii afhayeenada golayaasha xeerdejinta kulankaas oo uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaana laga wada hadlay sidii la isaga kaashan lahaa nidaamka xeerdejinta loogana wada tashan lahaa xeer kasta oo heer federaal ah intaan la meel marin ka hor si qawaaniinta dalku u noqdaan kuwo la isla ogol yahay waafaqsanna dastuurka iyo nidaamka federaaliga ah golaha wakiiladu Puntland waxay ka qayb galeen talooyin ka soo jeediyeen shirkii la tashi oo ka dhacay magaalada Kismaayo 7 ilaa 9 Abriil 2019 kaasoo ay isugu yimaadeen xubnaha madasha guddiyada dastuurka heer federaal iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxaana diiradda lagu saaray soo jeedinta ujeedooyinka iyo wax ka beddelka cutubiyada 6aad 7aad 8aad iyo 9aad ee dastuurka ku meel gaarka iyo qorshaha
la tashiga iyo wacyigelineed ee ay soo diyaariyeen guddiyada heer federaal waxaanu kaloo ka qayb galnay shirkii la tashiga ee ka dhacay magaalada Garowe 26 ilaa 28 Agosto oo isna lagu soo bandhigayay warbixinta wax ka beddelka cutubiyada 10aad 11aad 13aad 14aad iyo 15aad ee dastuurka ku meel gaarka kulamadaas waxay markasta golaha wakiilada Puntland ku soo gudbinayeen aragtida iyo talooyinkooda ku aadan cutubiyada dastuurka ku meel gaarka iyo wax ka beddelka lagu sameeyay waxaanu ka qayb galnay kulankii guddiyada xeeroosadyada iyo anshaxa baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka kaasoo lagu falanqeynayay sidii loo horumarin lahaa xeeroosadyada ay golayaasha baarlamaanku ku shaqeeyaan 1 Agosto 2019 waxaa xarunta golaha wakiilada Puntland ka qabsoomay kuna 3 geesood ah oo ay ka soo qayb galeen wufuud ka kala socota labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo ay hogaaminayeen Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Abshir Bukhari waxaana kulankaas laga wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka xalinta khilaafaadka siyaasiga iyo wada shaqaynta golayaasha xeer dejinta waxaana bogaadinaynaa inuu dhammaaday khilaafkii yaraa ee u dhaxeeyay labada aqal ee baarlamaanada heer federaal 12 ilaa 17 Sebtembar waxaa guddiga joogtada ah oo aan hogaaminayo safar shaqo oo aqoon kororsi iyo kulamo baarlamaani ah ku tagnay dalka Uganda safarkaas oo ay nagu heliyeen baarlamaanada koonfur galbeed iyo Hirshabeelle wuxuuna ku soo dhammaaday guul guddiguna waxay ka soo kororsadeen aqoon khibrad la xiriirta shaqadooda taas oo wax weyn ka tari doonta gudashada xilka iyo waajibaadkayaga dastuuriga ah kor u qaadista aqoonta iyo imkaaniyaadka shaqada golaha maadaama baarlamaanka shanaad 76% ay ahaayeen xubno cusub waxaanu ku guulaysanay inaanu u helno tababaro ku saabsan aqoonta golaha xeer dejinta oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah waxaan kor u qaadnay imkaaniyaadkii shaqada golaha sida gaadiidka iyo qalabaynta xafiisyada waxaa noo qorshaysan haddii eebba idmo in aan sida ugu dhaqsaha badan u hirgelinno dhismo cusub oo la mid ah kuwa ugu casrisan aqalada baarlamaanada Afrika ayna u dhammaystiran yihiin wax kastoo muhiim u ah shaqada baarlamaanka xukuumadduna waxay nagu wareejisay dhul ku filan dhismahaas waxaa kale oo aan dhowaan xafiisyo ka furan doonaa dhammaan gobollada Puntland si ay u sahlanaato in xildhibaanku si joogto ah uga warqabo xaaladaha deegaan doorashadiisa mudanayaal iyo marweyn golaha wakiilada Puntland waxay si buuxda uga qayb qaateen siyaasadaha xuduudaha dalka Puntland looga saarayo maamulka Somaliland waxayna wacyigelin ballaaran siiyeen shacabka Puntland gaar ahaan dadweynaha gobollada Sool iyo Sanaag waxaa kale oo ay qayb muhiim ah ka ahaayeen in ciidamo aad u badan laga saaro afkaartii khaldanayd ee maamulkaas kuwaas oo ay ugu dambeeyeen saraakiishii iyo ciidankii deegaanka Ceelbuh ee gobolka Sanaag kuwaas oo dhammaantood ku biiray ciidanka daraawiishta Puntland waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo u adeegta maamulka Soomaali diidka ah oo ka soo jeeda gobollada Puntland inay ka waantoobaan afkaartaas khaldan waxaana dowladda Puntland ka go'an inay soo dhaweyso qof kasta oo ka soo noqda aragtidaas ku racan golaha wakiilada Puntland kuma koobnayn oo kaliya arrimaha aan kor ku soo xusay hase ahaatee waxaa kale oo goluhu dhaqaale ahaan uga qayb qaatay biyo-dhaamiskii abaarihii bishii Abriil 2019 xalinta khilaafaadkii beelaha koonfurta gobolka Sool oo uu goluhu gacan dhaqaale oo aad u weyn ka geystay iyo taakulaynta dadkii ku waxyeeloobay dhibaatadii foosha xumayd ee ka dhacday degmada Saaxo oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah qorshaha kala fadhiga 45aad ee golaha wakiilada kala fadhigan waxaa golaha u qorshaysan haddii eebba idmo ansixinta miisaaniyadda 2020 xasanadsiinta wasiirada haddii ay jiraan wasiirro cusubi xasanadsiinta
guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka dhegaysiga warbixinta xafiiska difaacaha xuquuqul aadanaha Puntland la xisaabtanka hay'adaha dawladda waxa kale oo golaha hor yaalla hindisa xeereedyada howlgabka iyo kan maaraynta dhulka ama magaalooyinka mudanayaal iyo marwey ujeedooyinkii Puntland loo dhisay waxaa ka mid ahaa in deegaamadan laga hirgeliyo nidaam maamul dowladeed laguna raadiyo soo celintii qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed muddadii ay jirtayna waxay halkaa ku soo gaartay midnimo isu tanaasul iyo wada hadal sidaa darteed waxaan shacabka Puntland ugu baaqaynaa inay ilaashadaan midnimadooda wixii tabasho ah oo ay qabaanna u maraan sida nidaamkeenna iyo dastuurkeennu uu qabo si aanay u dhicin inay ka faa'iidaystaan kuwa ku howlan khalkhalgelinta xaaladaha amniga iyo deganaanshaha dalka aniga oo ku hadlaya afka golaha wakiilada Puntland waxaan ballan qaadaynaa inaan dhagaysanno tabashada iyo cabashooyinka ay qabaan dadweynaha aanu matalo si loo helo xasilooni siyaasadeed loona gaaro horumar iyo nabadgelyo waxaan soo jeedinaynaa in golayaasha dawladda madax dhaqameedyada iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan aan u istaagno sidii aan gacmaha isu qabsan lahayn isu qancin lahayn arrimaheennana ku dhammaysanno nidaamka dawliga ah ee aan haysanno lana dhowro dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla innagoo mar kasta muhiimaddeenna koowaad ay tahay masaalixda dadka iyo dalka guntii iyo gabagabadii waxaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed alle uga baryayaa nabadgelyo guul iyo horumar dadka Puntland waxaan ku boorinayaa adkeynta nabadgelyada midnimada iyo wada jirkeenna golaha wakiilada Puntland waxaan u rajaynayaa inay dhammaystiri doonaan ajendaha hor yaalla xilkoodana u gutaan si waafaqsan shuruucda dalka u yaalla intaa kadib madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynayaa furitaanka iyo hadal jeedintaada dastuuriga ah ee kala fadhiga 45aad ku soo dhawow hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh